iyadoo dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaan jiray xayawaan fara badan oo isugu jiray ugaadha duurjoogta iyo dugaagga noocyadiisa kala duwan oo qaar ka mid ah waayo hore ay ka dabar go'een dalkeena ayaa haatan Soomaaliland waxaa jira muwaadiniin iyagu ku howlan xanaanaynta iyo daryeelka ugaadha ama xayawaanka ka dabar go'ay arlada Soomaaliland kuwaasi oo waayo hore ku noolaanshahooda bulshada intii soo gaadhay ay ugu dambeysay halka qaar koodna sheekahan iyo sawirahan waxaan dhaafsiisnayn ay ka haystaan run ahaantii way adag tahay in deegaanada Soomaaliland xayawaanka libaaxa lagu arko marka si gaar ah aynu soo qaadano hase ahaatee beerta libaaxa oo ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxay tahay mid muwaadiniinta Soomaaliland ay dadaal ka muujiyeen arrintaasi sidii ay u hirgelin lahaayeen isla markaana ay u soo nooleyn lahaayeen xayawaanad iyo ugaadha iyadu hore uga dabar go'day ee dalkan Cabdiqani Maxamed Cali ayaana warbixin naga siiyay noocyada kala duwan ee beertaasi ay u qaybsan tahay kadib markii TV-ga qaranku uu arrintaasi kala sheekaystay iyo waxyaabaha ay bulshada halkaasi ugu soo bandhigayaan horta beerta libaaxa maanta lama asaasin hore u jirtay marka laakiin waxa la sameeyay dib habeen baa la sameeyay qurxintan maanta nala arkaysid baa jirta libaaxa iyo muxuu xayawaanka kale noo joogana waxa weeyaan hore u soo jireen waxa weeyaan waa hanti qaran ay Soomaaliland leedahay hoteelka imika waxa la furay muddo gaaban bay jirtaa waxaanan ilaa bil bay jirtaa imika bisha imika aanu jirnay run ahaantii dad fara badan oo inoo yimaadaan meesha bartay runtii aad bay u amaanaan oo de meel halkan oo kala Hargeysa ku dhex taala ama Soomaaliland ku dhex taala wali maysan arkin marka feedback aan dadka ka helaynaa iyo waxa weeyaan waxaan oran karaa dareenka ka bixinayaan waa dareen aad iyo aad u wanaagsan run ahaantii aad iyo aad bay ay u amaanaan meeshan waxaanu jecelnahay laakiin wali hawshii aanu wadnay wali maysan dhamaan waxa hawl far badan walba hartay beerta libaaxa waxaanu imika sameynaa khamiista iyo jimcaha xaflad marka waxaan xafladda ugu magac darnay la cashay libaaxa marka dad la cashay libaaxa ayaku maartay martida noo imanaya ku casheynaya ayay marka live music oo marka fanaaniin ka tumayaan oo ayaanu khamiis walba jimco walba ayaanu ku leenahay halkan waxaan leeyahay reer Soomaaliland inay xafladaha iyo khamiista ay jimcaha naga soo qayb galaan okay libaaxa iyo xanaaneyntiisa iyo la dhaqankiisu way adag tahay marka ma waxa jira dad aqoon u leh oo halkan ku sugan qaabka loola macaamilo libaaxa iyo hawlihiisa libaaxa waxa soo dhaqday oo soo barbaariyay oo haystay aabahay Cali Maxamed Warnacade asaga kuliba markuu doono qofulka intuu qaato ayuu la galaa marka waxa weeyaan waa caruur dhalay oo kale ayay libaaxi noqdeen runta asagu xanaanada halkaas asaga ka masuul ah oo si wanaagsan bay isku garanayaan libaaxa inan kale waxa jooga oo meesha libaaxa ka warhaya oo raashinkiisii iyo wuxuu cuni lahaa iyo waxyaalaha ay xagga nadaafadda inan baa u qaabilsan dhinaca kale qaar ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku nool oo booqda beertaasi ayaa ka waramay xiisaha ay u hayaan beertaasi kuwaasi oo sheegay in sawirro xasuus leh oo taariikhiya ay halkaasi iskaga qaadaan isla markaana qaarkood waxa ay cadeeyeen inaanay hore u arag xayawaanaadka halkan ku nool oo ay sheekahan iyo sawirahan ku hayeen ma sha Allah weligeed ma mood lahayn xagan libaax ba ku arki lahayn Hargeysa wadankeeni meel fog buu amaday wax fiican